marka inta aan bilaabno waxa jira basic of calculus qofka marka uu baranayo calculus-ka waxyaabo asaasiyad u ah waxa ugu horeeya function waa maxay function marka function aan soo koobo function marka tiraado isla markii waxa kugu soo dhacayo shaqo laakiin waa marka aad joogtaan biology-ga xisaabta marka aan joogno function waxa la fansaar function waxa la fansaar ama af carabi ahaan adala waa maxay fansaar fansaar waxa la waa xeer ku siinaya number kasto qaadato mid kale waa xeer kugu xiraayo number hadii la qaato number kale si kale hadii aan u dhaho function waa shay kasto marka shay aad qaadato ku siin kara shay kale for example hadii aan soo qaato waxyaabo aad fahmi kartaan waxa kamid ah makiinta cajiinka lagu shiido waa aragteen hadii galey aan qaato oo makiinta aan tago galeyda la shiido maxaa soo baxaya ma galey soo baxaysa waa maya waxa soo baxaya budo shiidan marka makiintu maxay qabatay makiinta hadii galey loo geeyo ee lagu shubo oo ay dhambasho ay shiido waxa ku soo baxaya budo marka makiinta waxay tahay function maxaa yeelay hadii galey aan ula tago waxay siinaysaa wax ka duwan wixii aan markii hore aan la tagay waxa la mid ah makiinta macsarta waxa la geeyaa sisin waa lagu shiidaa waxaana soo baxaya macsar marka macsar iyo sisin marka fiiriso muuqaal ahaan way kala duwan yihiin waxa marka bedelay sisinti oo ka dhigay macsarti waa makiinta waxay tahay function marka function waxa la shay kasto marka shay la qaato shay kale ku siin kara xisaab ahaan hadda soo laabano marka aan dhahno 2x + 1 is a function waxaan function waa sababtu maxay tahay hadii aan dhahno x booskiisa 1 u qaado oo aan dhahno 2 ku dhacsan 1 + 1 2 times 1 2 + 1 equal 3 marka fiir waxaan qaatay 1 waxaan isoo baxay 3 marka sax waxaan qaatay 1 waxa isoo baxay 3 marka waa function ku marka aawe waa kan function kana wuxuu yahay function maxaa yeelay hadii number la qaato number kale ku siinaa marka saay meesha 2 aan u qaatay meesha 1 aan u qaatay 2 aan u qaato waxaan haystaa 2x + 1 hadii x booskiisa aan u qaato 2 maxaa dhacaya waa 2 ku dhacsan 2 + 1 kuwan isku dhacaan it's 4 + 1 5 marka aan qaatay 2 waxa isoo baxay 5 marka sax ka qiyaas qaado marka marka intaana waxay tahay function sababtu maxay tahay marka number aan qaato number kale oo siina ka duwan numberkii aan qaatay kan kaliya ma ahan way badan yihiin waxa qaadan karnaa x² + 4x + 1 function waa si kala daa u dhahno waagi formanka aad joogteen waxaad soo qaadateen polynomials dhamaantood waa functions waa function la kala ka raadin marka function waxa yiraahdaa waa shay kasta marka shay la qaato ku soo saarayo shay kale aan u laabto di aan soo qaato area of circle waxay la mid tahay pi r². For example waxaan haystaa circle wuxuu leeyahay center wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo radiusku waa line isku xiraya centerka ilaa darbiga hadii radiuskan qiimihiisu uu yahay 2 cm maraadin karnaa area-da waa raadin karnaa waxa leenahay area waxay la mid tahay by r meeqaysana r waxaysana 2 cm oo la isku weeray by waan naqaana waa 3.14 diyaas ka soo koobo oo lagu dhuftay 2 hadii la isku weero waa 4 iyo centimeter hadii la isku weerana waa centimeter square ida marka 3.14 hadii aan ku dhufano 4 waxa noo soo baxay 12.50 iyo 6 12.50 iyo 6 centimeter square marka waxaan rabnaa waxa aan qaadanay waxay ahaayeen 2 waxa noo soo baxayna waa 12 fiir marka 2 marka aan qaatay 2 cm markii aan qaatay waxa ii soo baxday
12.56 سنتيمتر سكوير marka kana marka wuxuu noqonayaa function maxaa yeelay marka aan qaato number booska r aan u qaato number kala soo baxay hadii la weyneeyo goobadi oo radiuskana aan weyneeyo meesha 2 uu ka ahaa aan gaarsiiyo 5 centimeter waxa soo baxay fiir asagana area waxay la mid tahay by r square waa area of circle by 1 naqana waa 3.14 r waxaan haysanaa markaan 5 numberka la ziyaadi markaysa yes 3.14 times kan hadii la isku wargareeyo waa 25 kan hadii la isku wargareeyo waa 2 cm square marka hadii aan isku dhufano dhahano 3.14 lagu dhuftay yes 25 waxaan soo baxay 78.5 soo baxay 78.5 cm square markaan fiiri r waxaan u qaatay 5 cm maxaa soo baxay 78.5 su'aashu marka waxay tahay marka aan qaato 2 cm yaa soo saaray 12 numberkii ka dhigaya waxa ka dhigaya formula marka formula function ah uu shubay waa domain waxa soo baxaya shiidanna waa range-ga marka domain waa kuwa lagu shubo ama shayga kuwa la qaato kuwa soo baxayna waxa ku magacaabaysaa it is range marka inta waxaan ku soo koobaynaa marka qaybta maxaa yiraahdaa function hadda kale waa function of what function of radius waa qiimahan ma soo bixi karo isaga la qaadan qiimahan waa marka waa laba shay isku xiran waa markaysa waa laba shay isku xiran 2 waxay kugu xiraysaa 12.56 shanna waxay kugu xiraysaa 78.5 marka inta wuxuu ku sharaxaa laba qodob meesha wuxuu ku sharaxayaa laba qodob kan koobaad waxaan dhahnay for example waxaan haysanaa function la yiraahdo x square function f of x waa notation of function waa sumada ay leedahay functionka si kala hadii aan u dhaho f of x meeshaad ku aragto function waxa meesha yaal waa function marka waxaan rabnaa in numbers aan qaadano oo booskan aan dhigo aan shaqeeyo maxaa soo baxay oo aan fiirino hadii hadda aan dhahno laba qaado waxaan ka wadaa laba soo qaad booska x ku bedel shaqay hadii marka meeshan laba aan dhigno oo la isku yar maxaa soo baxay 4 ay hal qaado bal hal hadii meeshan aan dhigno oo la isku yar maxaa soo baxay hal eber qaado bal eber hadii aan qaadano oo meeshan aan dhigno oo la isku yaro maxaa soo baxay eberkiisi negative 1 qaado square gareen marka hadii negative 1 aan soo qaato oo booska x ka aan ku bedesho oo la isku yaro dabcan waxa baxaya negative-ka waxa meesha ka baxaya negative-ka waxa inoo soo haraya marka 1 waa kan marka ay hadii aan qaato negative 2 maxaa dhacaya negative 2 soo qaad ee booska x ka ah ku bedelo maxaa soo baxaya bal fiiri waxa soo baxaya fiiri hadii marka negative 2 aan qaato booska x ka aan ku negative 2 aan qaato booska x ka aan ku bedesho oo la isku weero negative 2 marka la isku weero isku weerku wuxuu meesha ka saaraa negative 2 hadii la isku weerana 4 marka qorin 4 watas marka numberska aan qaadanay waxa loo yaqaana domain kuwa soo baxayna waxa loo yaqaana range numberkan waxa soo saarayna waa functionki oo ah f of x waa x square marka x square ka marka numberska la qaato waxay ku siinayaan numberska kale ee soo baxay marka waxaan rabnaa number kasto domain-kaaga ah fiir hal falar ka baxayso waxa ka baxaya hal falar marka waxaan rabnaa in aan dhahno inta marka fiirsaan halka number ee ku dhex jira range-ga
wuxuu qaabili karaa laba number oo ka imaanayso ranjigaaga ee dhoominkaaga. halkaan number fiir isagana waa number ku dhex jira range, wuxuu qaabili karaa laba number oo ka imaanaysa dhoominkaaga. marka haddii aan soo koobo meesha u socdo waxay tahay hal number oo ku dhex jira ranjigaaga wuxuu qaabili karaa laba number oo ka imaanaysa dhoominkaaga. laba number oo domain, hal number oo ku jira ranjigaaga wuxuu qaabili karaa laba number oo ka imaanaysa domain, laakiin hal number oo ku jira dhoominkaagu kuma siin karo laba number oo ku dhex jiro ranjigaaga. si kale haddii aan u dhaho waxaa laga yaabaa in laba arday ay isku da' noqdaan oo suuragal, laba arday oo galaas ka fadhiso inay isku da' noqdaan oo suuragal, laakiin suuragal ma ahan hal arday oo galaaska dhex fadhiya inuu yeesho laba da' oo kala duwan, suuragal maaha. kuwa marka waxaa lahaa laba number oo dhoominka ku jira hal xabo ranjiga ah way isugu imaan karaan, laakiin waxaan suuragal ahayn hal number oo dhoominka ah inuu ku siiyo laba number oo ku dhex jira ranjigaaga.